19 September waxaa laga joojiyay madaxweyne hore iyo wafdi kale oo la socday xildhibaanada inay tagaan magaalada Kismaayo amarkaana waxa lagu soo gaaray inuu soo bixiyay madaxweynuhu marka waxaan rabnaa hayga dhaxgal وزير الجديد كان أنكو عليه مرة سؤال بسم الله الرحمن الرحيم وزير الجديد سجارة توكيل سبتمبر وحنا لقيت شو شيء مدحويني هنا ذلك شريف شيخ أحمد إنه آدم مجال كسمايو ورك وحنا كل اللي إنه مدحوينه حتى فرماته وأمر كسوب حيي وحنا جعلنا وزير كوينه ناش جو أمر كعدة صوب حسي سؤال سلام وزير الجديد sidoo kale 10 November wafdi oo hogaaminaya labada madaxweyne iyo xildhibaanada loo galo oo nabeeyay mucaawino geeyaan magaalada Beledweyne ayaa laga joojiyay airportka si ay u aadaan Beledweyne waxaa warku lagu soo gaaray ra'iisul wasaaruhu ka joojiyay waxaan rabnaa inuu wasiirku noo sheego cid amarkaas siisay su'aasha saddexaad mudane gudoomiye waxaan rabnaa inuu noo sheego wasiirku goorta uu keenay heshiis dib loola galay shirkadda Favori سؤال أفراد مدني قدومي وحرمنا هنا نويدينه وزيرك waxaa jira shirkadaha aan la galay heshiis oo Soomaaliya ay la gashay heshiis oo dalkan magaalooyin badan ka taga oo diyaaradeed dhigeena diyaaradaheena ma loo ogol yahay inay tagaan wadamada maxaase sababay shirkadaha diyaaradood si u sameysmay 30 sanadood in heshiiska lagu dari waayay inay meelaha tagaan mudane gudoomiye waxaan soo gaarayaa warbixino ay soo saartay maxaa runta ganacsiga ee Jubbaland waxaana sheegeen in khasaare baan uu ka yimi xayiraadihii lagu soo rogay deegaamada waxaan rabnaa inaan wasiirka weydiino wax warbixin ama ka haya abasho maxaa la yiraahdaa saameynta mudane gudoomiye su'aasha ugu dambeysay aan weydiiyay aan rabay inaan wasiirka weydiiyo waxa ka imanaya cabashooyin shirkadaha diyaaradda oo ka cabanaya in hal charge ama hal fee laba jeer laga qaado oo ay kala qaadaan yaata iyo shirkad wasaaraddu ay la gashay kawo iyo shirkad ay dawladdu la gashay wasaaraddu heshiis oo Favori leeyna charge kuna isku mid yahay waxa laga qaadayo marka waxaan rabnay inaan ogaano sababta hal shay oo isku mid ah diyaaradaha laba meelood laga qaado qaarkoodna lagu ciqaabay oo blacklist la sheegay in lagu galiyayba وما تصنت بدون قدومي أنا قدومي حلوانة شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب آخر سكي شرعي civil aviation كإعلامات مالنتي عن مرسيني سوق كايدن بيسي مركب فرح سنة إن نسيسين وقتي إذن كان عن سؤالهن إذن كجوابنا annagana aan clarification aan ku sameeyno idin ku qancino hadii Ilaahay ka raali noqdo xildhibaan Cabdi Fataax aad buu u mahadsan yahay waa gudoomiyaha guddiga gaadiidka oo si dhow aan u wada shaqeyno markaa ku faraxsanahay inaan address gareyno dhammaan concerns-ka uu qabo 19 bisha September madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Xasan Sheekh Axmed ma uusan joogin sida aan warka ku hayno wadanka ma uusan joogin wadanka uu ka maqnaa sidaas awgeed wax xanibaad ah oo isaga ama diyaaradaha lagu sameeyay ma ay jirin mudane gudoomiye maalintaas wax la xanibay ma ay jirin su'aasha labaad arrinta beledweyne ku saabsan maarayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin oo nala jooga ayaa ka jawaabi doona insha Allah taala arrinta shirkadda Favori waxaa lala galay heshiis 2013 heshiiskaasi baarlamaanka ayaa la hor keenay lama ansixin waxaan helnay nasiib wanaag laba company oo ku takhasusay airportada iyo concessionskooda annagoo qiyaasayna in xuquuq badan dawladda Soomaaliya ay kaga maqan tahay shirkadda Favori hal sano iyo bar ayaan heshiiskaasi ka shaqeynaynay laba shirkad oo waaweyn oo caalami ah ayaa nagala shaqeysay
midna dhinaca legalka nagala shaqaynaysay midda kalena ay nagala shaqaynaysay dhinaca concessionska iyo waxa aan ka heli lahayn benefitka aan ka heli lahayn nasiib wanaag khubaro badan oo Soomaali ah way nagu jireen sanad iyo bar kadib waxaan gaarnay heshiiskii aan gaarnay waxaan marsiinay processyadii loogu talagalay dhammaantood oo ay ka mid yihiin guddiga procurementiga waan soo marsiinay waxaan geynay financial governance groupka ayaan u geynay oo dood dheer kadib waxyaabana intaan ka bedelnay aan dib ugu celinay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad looga soo shaqeeyey alxamdulillah finalkii waxaan soo marsiinay golaha wasiirada ilaa iyo intii heshiiskaas la hirgeliyey waxaa dowladda u soo korodhay lacag ka badan 100,000 bishii oo ahaa xuquuq naga maqnayd ayaan maanta haysanaa labo kontraadii hore kuma qorneen sida loola xisaabtamo shirkadda Favori maanta waxaa ku qoran haddii maanta ay shaqo bilaabi lahaayeen oo dib uga dhacaan ganaaxyada iyo meelaha lala tiigsanay dhammaan way ku qoran tahay sidaa la socotiin airportka dhinaca badda biyo ayaa ka soo galay derbiga xilliga maxaakiimta la dhisay ayaa runwayga protect gareeyay ilaa hadda shirkadda Favori waxaan kula heshiinay lacag gaaraysa 14 milyan oo dollar oo cusub in ay geliso si derbiga baddana loo dhiso loona duugo airportkana loo weyneeyo apronka meesha diyaaradaha la dhigo xilli hore ugu dambeysay in la hagaajiyo waa la ballaarinaya haddii ilaahay ka raali noqdo marka lacag 14 milyan oo dollar oo cusub ay shirkadaasi gelinaysaa meesha haddii ilaahay ka raali noqdo qalabkii lagu sameyn lahaa shaqadaas oo dhan wuu yaalaa waa la keenay shaqadana mar dhow ayay bilaabanaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo marka wax badan ayaa dhinacaasi inooga soo hagaagay waa mahadsan wasiirku laakiin waxaa noo muuqata fakad xagga su'aalaha laga fakanayo marka mudane gudoomiye waxaan jeclaan lahayn inaan wax ka date waa qaldami karaa 22 September bay ahayd dabcan waxaan taariikhda ana qaladka taariikhda xagga ka yimi laakiin taasi xaq ma u siinayso inuu su'aashii ka jawaabo waayo dabcan wuu fahmay waxaanu ka hadlaynay laba jeer Sheekh Shariif lagama celinin Kismaayo inuu tago marka Baytul Qasiidku wuxuu ahaa inuu su'aasha ka jawaabo su'aashiina ma ka jawaabin wasiirada waxaan ka dalbanaynaa inay joojiyaan fakadka xagga su'aalaha wasiirada iyo tiimka la socdo halkan ay yimidna maanta u joogeen wax la weydiiyay inay noo imaadeen ayagana oo ku mahadsan yihiin su'aasheedu waxay ku saabsan tahay wasiirka wasiir Omar wasiir warbixin soo baxday oo xafiiska hanti dhowrka guud ka soo baxday 18 bishii 7 2018 waxay qoraysaa in warbixin baariseed lagu sameeyay waaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay ka dhacday maamul xumo baahsan iyo ku tagrifal lacageed xagga dakhliga ah ay qabteen ayagoo jibiyey shuruucdii maaliyadda ee u degsanaa dalka qodobka sharci number 314 qodobka 34 oo sheegaya in dakhliga la qabtay aan la isticmaali karin ka hor inta ay khasnada dhexe ee dawladda lagu xareyn lacag ilaa iyo 553 kun gaarayso oo sidii sharciga oo qoriga ka duwan loo isticmaalay oo ay mataqaanaa hanti dhowrka guud ay idinku eedeeyaan arintaas wixii ka qabatay iyo sababta ay u dhacday waan ka rabnaa qodobka labaad oo la xiriira ayadana isla eeridaas waxaa waaya wasaaradda gaadiidka waxaa jira dakhli garoonka ka soo xarooda ee garoonka guryaha ku yaala iyo airportka parkingkiisa ka soo xarooda lacagtaas oo loo qaado si bil ah iyadoo dakhligaas ay soo xustay aan soo xusnay lagu qabtay buug ama buugaag aan ka diiwaan gashaneen xafiiska xisaabiyaha guud laguna xadgudbay sharciga nambarkiisa yahay 317 isagana waxaa idinku eedeynayaa in lacagihii buugaagtaas lagu qabanaya buugaagtii aanan sharciyeysnayn kuwa ka duwan in lagu qabtay ayadana eedeyntaas wasaaradda loo soo jeediyay inaad cadaysid sababtay u dhacday iyo wixii halkaas laga qabtay su-aasha ugu dambayso isla wasiir Omar waxaa waaye wasaaradda duulista hawada budgetkii hadda revisionkeeda waxaa ku jiray lacag 6 milyan oo dollar ah oo loo qaabeeyay in lagu bixiyo shaqaalaha iyo dayactirka airporto
ilaa iyo 6 gaaraya oo ay ku jiraan Boosaaso Beledweyne iyo erboorro kale lacagahaas erboor kasta qiimaha inta ku bixaysan ayagana waxaan rabnaa maadaama ayaantaas faahfaahin naga sii waaye in ayadana naga siisid si aan u garanno erboor kasta qiimaha oo dhaqaale aadaysa wasiirada taliyaasha iyo akhyaarta kale halkaan joogta maantay runtaani waxaan u arkaa su'aal weydiinta inay ka mid tahay shaqooyinka caadiga ah baarlamaanka marka wax tensiona iyo wax weyn iyo laysma xaganayo laysma feerayo waa arintu normal ha loo arko xildhibaanadu normal ha u arkaan waana markii koowaad aan practice garayno shaqo aan lahayn taasaa waxay keenaysaa in xildhibaanada tension iyo qof markuu wax weydiiyo iyo indho kulul iyo wax laysku fiiriyo normal marka baasha loo fiiriyo fadlan we are friends caadi iska dhiga saaxiibaanna wasiirka waa runtii wasiir Omar waa soo dhaweynaynaa waana nin geesi ah inuu maanta hor yimaado halkaana waa ku bogaadinaynaa runtii oo jawaabo isku day inuu ka jawaabo anigu su'aasha 3 su'aalood kaliya aan qabaa horta su'aashii 26ka su'aashii ku saabsanayd 22 September inuu si fiican uga jawaabo xayiraadii madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socday magaalada lagu sameeyay Kismaayo iyo tii ka dambeysay oo loo madaxweyne iyo wafdi xildhibaanaha aan ku jirnay halis lagu galiyay hawada arintaas inuu ka jawaabo aad baan u soo dhaweynaynaa mid labaad rugta ganacsiga wasiirku Jubbaland uu ka soo jeedaa saan u maleynayo murashaxna uu ahaa madaxweyne iyo waxba lagu tuhmayay waxaad moodaa markuu meeshii tagi waayay inuu ka aarsaday awoodii uu haystay waa aarsaday dadka reer Jubbaland kuna cuna qabateeyay dhibaato badanna ku sababay marka wasiir rugta ganacsiga November 26keedii Jubbaland waxay soo saartay xildhibaano fadlan halka ha yimaado qofkii su'aal weydiinaya ana su'aasheeda weydiisanaya wasiirka 26 November rugta ganacsiga ee Jubbaland waxay soo saartay warbixin dheer oo ay ku sheegayaan dhibaatooyinka bini'aadamnimo dhibaatooyin su'aalaha wasiirada xildhibaanada markii su'aal qabo wasiirada xildhibaanka taagan su'aashiisa weydiinaya ma jawaabo wasiirada kama xitaan asagina ma xitaan qabeelka kuma qorayaan dowladda wasiirada aniga insha Allah ganacsiga waxay soo saartay dhibaatooyinkii xanibaadda diyaaradaha ee la yiri Muqdisho soo maraan diyaaradda Dhobley ka soo kacaysa oo ay 30 daqiiqo ama 25 daqiiqo inay u duusho Kismaayo in la yiraahdo Muqdisho soo marto oo halkan dadka lagu ciqaabo sidii wajeer lagu ciqaabo su'aalkaas su'aal nabaysay صاحبي وسلم أنا سؤال واحد دم صعدت جوابتي وسير كوا هذا قينا وسير عمر وسير دعاء إن ما تنهري مادان oversight كينا كم تهايو وشيء عادية إن حولها هيان حول قرن ويانها وحلا جويدية سؤال وحنو قديك قاديتك ويدي سنة وسيرك مدهورتيد إنه هشيس كان وحب في عنه كشيء ليه خيرات بدن بدلك وغيبي إنه نلو ذاقه وكان يا أبوي لهذا صدح بلاد بكسو وريكتي يموتش الله بلاد واحد هاي قد جوي كسو جيسي وأنا نلو ذاق واي تاسنا وحي كم تهاي سهرتاج له لسهرتاج إيوه حلك وين البرلمان كان ليه البرلمانكو ومثلات legislation كوي سميان شرعي دجيال oversight ما سمين كرنه هدان وسيردو جدًا حلكا أي ليهين ووحى أي صحيحان أين لا وداقين هرت التاس هدي ولا قبضان وكل شيء يا كل شيء لو قرينا يا قرن منه سبب لو قرينا ماله برلمانك waxa uga wakiila guddigaas uga wakiila gaadiidka degdeg baan ugu baahanahay documentka waxa kale aan ruuxaan la soconnaa waxooga hadda maadaama ay soo wareegtay hawadii oo ACC-gii uu shaqeeyo halkan laga kontrolo dayuuradaha ina dulmara
hawl badan iyo training badan baa socotay waxaa nagu maqaalaa in is-afgaranwaa badani jiro sharikadda traininga samaysay qalabka bixisay iyo sharikadda international civil aviation organizationka iyo wasaaradda oo wasiirku weliba gaar ahaan waxaa hadda naloo soo sheegayaa in ay dhici karto labadaasi inay isdacweeyaan hadday isdacweeyaanna dhaawac weyn baa gaadhaya hawshii la soo wareejiyey oo dadkana qalabkana iyagaa keenay trainingana waxaan ka rabnaa caddayn baan ka rabnaa hawshaas بسم الله الرحمن الرحيم حلو عبد الفتاح وصح ولباتنك بشا سبتمبر أي حلق ديارة ومدحوينه يعني هراء مدحوينه الشيخ شريف أحمد وسارين هي وقبتي ديارة وحاقبتي الشرعي يسوى صارته أدى دولة الرئيس كصوماليا سيدا لسعتين ديارة النوتم كلا سوى صاره wuxuu qabtaa diyaaradda dhulka taagan xilligaas xilliga diyaaradda nootamka uu soo baxayay diyaarad dhulka taagneed ma jirin sida nagu maqaalo ah madaxweynaheenii hore ma uusan joogin wasaarad ahaan dowlad ahaan xukuumad ahaan wax dhibaato ah oo aan ku qabna madaxweynaheenii hore inuu si xur ah u safro meeshuu rabana tago annagay sharaf noogu jirtaa inaan soo dhoweyno markuu yimaado airboortka meesha u socdana aan u sahalno marka runtii ma jirin wax madaxweynaheenii hore innaga shakhsiyan aan u geysan ma jirin sharci diyaaradeed oo aan soo saarnay wuu jiray sharcigaas ayaa laga yaabaa diyaaraddii uu rabay inuu raaco inay qabato sida aad la socotiin arrintani hadda waxay hortaallaa maxkamadda maalintii ugu horreystay waa laga fariistay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa maxkamadda ayaa go-aan ka soo saari doonto iyo recommendations arrinta hantidhowrka sano kasta wuu baaraa wasaarado oo dhan wasaarado kastana wasaaraddii lasoo eedeeyo baaritaan ayaa lagu sameeyaa innaga intii nala soo eedeeyey baaritaanna laguma sameyn lacag nagu maqan ma jirto wasaaradda ku maqan haba yaraatee ma jirto recommendations la bixiyey way jirtaa oo la yidhi habraaca maaliyadda raaca ee sidaa wax u sameeya laakiin ma jirto lacag wasaaradda ku baxday lacag wasaaradda ku luntay hanti dhowrku marka uu baaritaanka sameeyo markii uu wax arko baaritaan rasmi ayay sameeyaan taasina ma dhicin marka lacag nagu maqan runtii ma jirto dhinaca parkinka wuxuu ka mid yahay shirkadda Favori waxyaabaha aan kontraada kula galnay inay parkinkaasi maamusho waxay ka mid tahay dukaamada ku yaala airportka gudihiisa oo kale warqad uu soo saaray wasiirkeena hore wasiir cilmooge 31 July 31 August 2013 nambarkeedana yahay 294 wuxuu sheegayaa dhammaan qofkii koobi rabana waa siinaya in wax alla wixii fee ah oo airportka laga qabto parking uu ku jiro navigation fee-ga uu ku jiro iyo dhammaantood in ay qaadi karto oo keliya shirkadda Favori marka ay qabato lacagtaasi lacagta parkingka ka timaado waxay ka mid tahay dakhliga airportka naga soo galo shirkadda Favori ayaa qabanaysa lacagtaasi dhammaantood iyada ayaa dawladda u soo gudbinayso ayadoo waafaqsan sidii heshiiskii aan ku heshiinay dakhliga sida loo qaybsanayo ayaa dawladda qaybtii ay lahayd halkaasi nooga imaanaysa Abdullaahi Tafaali xildhibaan fiqi waa runtiis saa la socotiin Jubbaland waxaa ka dhacday waxay gaftay inay doorasho qabato aniga shakhsiyan Ismaaciil igama joojin aniga ka joojiyay
iska joojiyey anigaa ka joogay anigoo diidan in meeshaasi colaad iyo dagaal uu ka dhaco sidaa sheegtayna reer jubbaland baa ah soomaalina waan ah qof iga joojin karna male go-aanka anaa qaatay inaan ka haro qof aan ka aargoosanayna ma jiro dadka meesha joogoo dhan waa qaraabo waa soomaali waa saaxiib dhib shacab soomaaliyeed loo geystayna markhaatina kama ihi anigana igama imaan rugta ganacsiga aad sheegayso stadia soo saarta weligay maarag qayaas iyo arrimo siyaasadeed iyo islaam baa duurka ku dhashay iyo diyaarad baa kici waysay iyo way sheegaan mediumka ma waa mahadsantay رجل دولتان سؤال رجل دولتان su-aasha wasiir ali jaamac jangeli oo wasiirkii iga horreeyay ahaa aadna ooga warraya howlahan meesha ay marayaan wasiir heshiiska favori aan la galnay waa heshiis soo maray golaha wasiirada dhammaan guddiyadii loogu talagalay inuu soo maro waa sax in si liiga codsaday inaan keeno iyadoo qoraal ana 2 maalin ka hor ayaa la ii soo gudbiyey inaan keeno heshiiskaas oo koobiyaal aan idin keeno waa la idin diyaariyey xafiiskaygaa diyaariyey insha allah tacaala waana la idin keenaya dowladda ka raali noqon ma aha heshiis la qarin karo hay-adaha oversight-ka nagula f g c-ga waxay haystaan koobiyo favori koobi bay haystaa golaha wasiirada oo dhan way haystaan idinkana waa la idin keenaya sabab la idinka qariyana ma laha wax la qariyana kuma yaalla heshiiskaas su-aalihii xildhibaan beene dhammaantood waan ka jawaabay sida aan jeclahay dhinaca rasiidyada ayaanan ka jawaabin wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ma jirto sideedaba lacag ay qabato innagu lacag ma qaban lacagta oo dhan ee innaga keenno waxay aadaa khasnadda dhexe ee dowladda wasaaradda maaliyadda qabato waxaan ka soo bilownay 2017 September ilaa iyo maanta aan joogno dhammaan lacagaha la qabto waxay aadaan khasnadda dhexe ee dowladda haddii ay dhacdo in khaladaad ay dhacdo si khaldan lacag lagu qaadane sixitaan ayaan sameynaa laakiin runtii ma dhacdo eerboorada dhaqaalaha ku baxa budgetka cusub budgetka waxaa ku soo daray hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed marka maareeyaha ayaa ka hadlaya insha Allah tacaala aykaw ayaata intay lacagta aruusay aykaw siin jirtay hadda waxaan rabnay in ayaata lacagta ay aruusay dowladda Soomaaliya ay siiso marka contentigii sidii ay u qorneed heshiiskaas ayaan soo wareejinay inagoo ku soo wareejinay kaliya in lacagtaas ay dowladda Soomaaliya qaadato meeshaasi waxaa ka soo baxay in fiiga qaarkiis laga yaabo in ayaatana ay qaado favorina ay xaq u yeelato inay qaado arrintaasi lawyer ayaan ku celinay oo dib u eegaya haddii ambiguity ay jirto oo labada qof qoladii qaadi lahayd meeshaas ay ka soo baxdana waa la saxayaa diyaaradahuna haddii aan ka qaadnay lacag dabal ah labada meel bay ka kala qaateen waa loo soo celinaya wax xaq darro ah meeshaasi kuma jiro waa la siinaya hadduu ilaahay ka raalna wasiirada sharafta leh saaxiibada xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mudane gudoomiye aniga arar mar raba inaan galo su-aashayda waxaa waaye waxaa xaqiiq ah macalin wasiir adigana jubbaland ka timid anna jubbaland ka imid reer jubbaland maxaa la yidhaha xanibaadda diyaaradaha la soo saaray hay-adihii ka shaqaysanayena waa qasaareen waa rafaadeen shacabkiina cunto la'aan iyo caqabado oo sicirkii badeecadu cirka galay yaa soo food saaray adna waa og tahay intayna jubbaland ka nimidna waa og tahay yaa faa'iido ku qaba waa dhammaaday isjiidjiidkii siyaasadeed yaa faa'iido ku qaba in caqabadan ay weli sii saarnaato jubbaland ma tahay saxiixaaga iyo awooddaada wax aad maanta qaadi karto mise cid kalaa awooddaa iska leh oo aan aadnaa oo noo sheegaysaa aniga su-aashaydu intaasay ku kooban tahay soo dhawo wasiir mudan gudoomiye dhammaan xildhibaanada
wasiirada saraakiisha howlwadeennada waa idin salaamay waxaan rabaa kaliya inaan meesha hal su'aal ka weydiiyo wasiirka dowlista wasiir Omar waxaan rabnaa horta inaad naga dhaadhicisid waa maxay nootamka waxa uu yahay waxaan rabaa inaad ii sheegtid waa maxay nootamka waxa uu yahay xafiiskaasa soo saara okay yaa leh awoodda go'aanka maamul oo ka dambeeya oo kama dambaysta ah okay ma hay'adda duulista mase wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka waa su'aasha saddexaad ma jirtaa cid ku soo cabatay oo ma jirtaa cid ka cabanaysa nootamka oo ku timid waxaan ognahay inuu jiro qodobka 27 law number 5 oo soo baxay February 2nd 1998 oo dhahaya haddii shaqaalaha ay dhacdo in fal ama wax qabasho la'aan ay timaado ay bixinayso hay'adda Researchment Didanno dhibkii soo gaaray okay waxaan ognahay in dacwadda la geeyay maxkamadda sare markii la geynayo maxkamadda sare ilaa waa hay'adda garsoorka ma adiga soo saaray go'aan maamul oo kama dambays ah mase waxaa la aaday straight iyadoo lagu imaano warqad aysan soo bixin in ilaa waa xeer nidaamkii garsoorka oo maxkamadda sare ay mas'uul ka tahay midayda saddexaad intaasaan uga baxayaa su'aalahayga بسم الله الرحمن الرحيم horta kulanka kulliska caadi weeyaan su'aalahan waa su'aalo dastuuri ah caadi ah iska dhigo marka malaha su'aashadan si galaa su'aalahayga mudane wasiir iyo hay'adda duulista hawadaba waxaa la soo saaray dhowr jeer nootam kala duwan mar waxaa dhaxdeen diyaaradaha aadaya Kismaayo 4 saac kor waa inay soo codsadaan mar waxaa dhaxdeen 3 bari Kismaayo wax xirantaa wax diyaarado aadi kara ma laha oo taariikh ay sheegteen mar waxaad xanibteen wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed intaas oo dhan oo isdaba jooga oo iska daba imaanayay ma la dhihi karaa go'aan siyaasi oo mar walba isbedel ay ahaayeen go'aan technical ah oo la gaarayo maxaana dastuurka Soomaaliya sidoo qabo hay'adana lagu soo celiyay shuruucda adduunka loo yaqaano waa inaan la siyaasadeyn hay'adda duulista hawada ma la dhihi karaa go'aanka ay gaaraysan go'aan professional ama ahaan go'aan siyaasi ah oo idinka ka sarreeya ayuu ahaa Omar mudane wasiir waxaa noo sheegtaa hadafka laga leeyahay cunaqabataynta la saaray dadka ku nool gobollada Jubbooyinka ujeedada laga leeyahay noo sheegtaa rabnaa kow waxaan rabaa labo sharciyada loo cuskaday in la cunaqabateeyo gobol ka mid ah gobollada Soomaaliyeed sharciga oo cuskatana waa ka rabaa labo waxaan rabaa mid saddexaad dabcan aqliyan ninka la yiraahdo Axmed Madow ayuu ahaa ninka is hayeen federaalka oo problem ka jiray asagiina hadda Axmed Madow wuxuu joogaa meesha Nairobi marka soo uma muuqato cidda loo dan lahaa waa shacbiga ee asagaba ma aha saddexaas su'aal waxaan rabaa ka jawaabto midda kale waxay tahay afraad antidorka warbixinta uu soo saaray horena lagu weydiiyey 2018 waxaa ku jirtay qofka buugga u haya lacagta lagu qabanayay wasaaraddu qabanaysay inuu yahay qof aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda qofkaas waxa uu ahaa iyo ujeedada qof banaanka jir loogu dhiibay waxaan kaloo rabaa lacagta nus milyanka ah ee ku qoran warbixinta waxaa tiri su'aal soo lagu weydiiyay waxaa tiri lacag uma maqna ma hanti dhowrkan warbixin aan jirin soo saaray mase adiga dafiraha rawaas nooga jawaab salaam calaykum xildhibaan Abdi Cali doctor diyaaradaha lama xanibin waxaan u baahanaa inaan clarification sameeyno xanibaad micneena maybe diyaaradaha aaday Kismaayo anaga ma joojinin waligeed lama joojinin waxaa la yiri diyaaradaha ka yimaado diyaaradaha u socda Kismaayo
muqdisho ha soo maraan xanibaad ma ah kow anigoo taas kusii dhex jiro waxaan rabaa inaan kaga sii faa'iidaysto xildhibaan xasan yare arrintiisa isagana su-aashiisa 3 maalmood oo diyaarada la xira innagu diyaarada weligeed ma xirin nootamyadii aan soo saarnay dhammaan way document garaysan yihiin way yaallaan meel kastana way ku jiraan intii aan soo saarnay dhammaantoodna waa haynaa mana la xanibin diyaaradaha xanibaadda haddii ay sidaan u malaynayna ay tahay oo joojin ay tahay waxaan soo saarnay nootam aan leenahay diyaaradda soo marto muqdisho marka xildhibaan cabdi cali arrintiisa anoo ku dhex jiro dhibka dadka geystay dowladda soomaaliya ma aha dhibka wuxuu ka yimid doorasho xor iyo xalaal ah ayaa ka dhici weyday kismaayo maadaama ay ka dhici weyday 3 madaxweynena ay joogeen hal madaxweynena hadda uu ku soo darsamay innagu waxaan ilaalinaynaa xuduudaheenna diyaaradaheenna garoomadeenna amniga unbaan ilaalinaynaa qof aan u joogna ma laha shacabka jubbaland cunaqabateen aan ku haynay ma laha marka ma jirto wax cunaqabateen ah iyo xanibaad ah oo dhinacaasi naga soo gaaray xildhibaan maryam arrimaheeda su-aalaha ayna weydiisay dhammaan waxay ku saabsan yihiin hay-adda duulista rayidka marka maareeyaha ayaa ka jawaabi doona hadduu ilaahay ka raali noqdo hadafkii laga lahaa cunaqabateynta wax loogu wacay ee runtii aanan ahayn cunaqabateen iyadana waxaan u malaya inaan hore ooga jawaabo mahadsantiin waxay ahayd sabab xuduudaha aan maaragtay dalka ku dhowraynay wasiir xuduudaha dalka biri iyo bad iyo cirwa hadday birigii furan yahay oo aadan waxba kontrooli karin oo xuduudda kenya ay ka soo gelayaan baabuurtii oo baddii ay furan tahay xuduudda aad qofka dhoobley ka soo safraya aad leedahay xamar ku imow oo aad ku dhibaysid ama qofka meel kale ka imaanaya dhibaatadaas unbaa loo geysanayaa ma ahna xuduud kuu xiran ma jirto wasiir annagana dee dad waaweyn baa nahayna lama camayn karo waa mahadsantahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدن قدومي iyo xildhibaanada sharafta leh waa idinka mahad celinaya horta waqtigiina maanta tan labaad wax kasta oo dhaca hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka waxay aaminsan tahay wax kasta oo dhaca hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka waxay aaminsan tahay inay xildhibaanada la kuleeyihiin waayo xildhibaanadu muddo 2 sano iyo bara waxay la fadhiyaan sharcigii maantana kala saari lahaa ilaa hadda in la meelmariyo waa la diidan yahay diyuuradaa la xanibay xuquuq muwaadiniina lagu tuntay garoonaa sidaa noqday garoonaa la xiray ummada cunaqabatayn la saaray dhammaan sharciga hay-adda duulista ayaa kala saari lahaa laakiin ilaahay qadartiis gacantiina ayuu ku daahay marka waxaan idinka codsanayaa horta sharcigaas in naloo boobsiiyo si macnaha tacadiga maanta taagan iyo questionka isweydiinayaan uu meesha uga baxo tan labaad notam waxaa la yidhaha ayaa xildhibaan maryan weydiisay isagaan ku hormarayaa notam horta waa ereyo la soo gaabiyey oo u dhigan notice to airman waa aalad ay iskula hadlaan controllerka ama civil aviationka dhulka jooga iyo waxa waaye waa macnaha akhbaar ku socota dadka hawada isticmaala oo loola jooda bailodyada iyo controllerada mainly normally waddan adduunka oo dhan ayaa loo diraa marka aad diraysid 200 iyo qadaadiicda adduunku yahay ayuu 1 minute ku gaaraya waxaana lagu soo saaraa marka wixii aad ku shaqaynaysa garoonka wax alla wixii ciriiri gelin karaa amniga diyuuradda inay si nabadgelya ku soo shaqayso garoonka haddii cilladu ka dhicdo haddii airspace la xiro haddii rudadkaada hawada ay isbedelaan qalabkaada hadduusan shaqaynayn waxaasoo dhan ayaa loo adeegsadaa koodhadh ayuu ku qoran yahay waxaa fahmi karaan qof aviation keliya marka sidaas uu notam ku saabsan yahay arrinta beledweyne markaa u laabto horta dowladda soomaaliya wax xildhibaada ma samayn xildhibaano badan ayaa markhaati iga ah
oo maalinta goobjoog ahaa aniga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ama xasan alkhayr ama wasiirku diyuurad horta lama hadlaan haddii in la hadlaan anay dhex maraan anigiina 2 saac oo subaxnimo iyo bar anoo xafiiskayga fadhiya ka warqabin ayaa janaraal ashkar ii yeeray wuxuu ugu yidhi madaxweynayaashii ayaa ku jira terminaalka saakisigisay soo galeen adaana haysatid marka anuun ka warqabin si aan wax u hayn kara ayaan fahmi waayay madaxweynayaashii waan u imaaday intaan usii socday waxaan wareystay destinationka u socdaan beledweynaa leegu yiri beledweyne markii lagu yiraa cilada kow kuu soo baxaysaa waa in roob garoonkeeda ayaa had iyo jeer qoya oo buuraha kusoo gediya arrintii waxaan sii wareystay beledweynena hay-adda duulista ama dowladda soomaaliya eerboorkeeda xirfadlayaad ka shaqeeya ma joogaan raadiyeeda wuxuu gacanta ugu jiraa amisom shaqaalaha garoon ka shaqeeyana amisom ayaa maamusha waxaana la maamula hay-adda un-ka oo loo yaqaan unsos wixii warbixino ayagaan uga dabayna unsos ayaan sii wareystay waxay ii sheegeen garoonka beledweyne in 600 mitir marka lasoo dhaafo uu dhexda ka qoyan yahay sidaa awgeedna aysan suurtagal lahayn in dayuurad fixed wing wax dayuuradaha loo yaqaan oo baalashooda helicopterka aan ahayn inaanay dega karin waxay ii sheegeen inay helicopter WFP leedahay ay direen 8 o'clock sida awgeedna 9:30 ay gaari doonto beledweyne pilotka wadaana oo assessment runway ku samayn doono kadibna uu noo soo diri doono waxa xaqiiqdu tahay waa u tegay madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif janaraal ashkar ay la socday xogtii ayaan la wadaagay waxaan u sheegay personal inaanan ka warqabin xanibaada diyuuradooda aanan ka warhayn isagoo ila jooga waxaan wacay wiilasha taawarka waxaan ku yiri diyuuradda registrationkeedu kaas yahay meedinka wax xoga ku saabsan haysan waxay nagu yiraahdeen pilot engineer waa dansan yihiin dabna uma xiriirsana soo radio kula xiriirnaa radius off one oo macnaheedu yahay wax waraka ma hayno madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh waxaan u cadeeyay hadda haddii aad isleedeen waa laydi haystaa aniga janaraal ashkar waa idin raacaynaa diyuuraddiina koraysaan waana baxaysaan laakiin one thing safetygiina ciriiraha gelinaha aviation meeshii dhibic tuhuna laga sheego seriousaa loo qaataa sababtuna waxay tahay diyuuradda haddii wax yar u dhacaan kalama harayso marka waxaan leeyahay madaxweyne meesha warbixintaana ka taal oo unsus soo dirtay oo jibuutiyaanka ay leeyihiin diyuuradda ma degan karto sidaa awgeed at your own risk waa kici kartaa dowladda soomaaliya kuma haysto weliba waa kacayaa waana ku adkaystay WFP pilotkii degtay report uu soo diray email xildhibaanada dhan waa la wadaagi karaa si clear uu qoran yahay runwayga cilada uu qabay madaxweyne xasan sheekh iyo waxay go'aansadeen after all of this waxay go'aansadeen waa bixaynaa go'aana ku qaadan asoo maqlaa taawarka wacay diyuuradda madaxweynuhu saaran yahay priority number 1 la siiyo si madaxweyneyaal kaca waa laga joojiyay diyuuradii kale keligiisuu kacay wixii from there kadib ka dhacay beledweyne communication lama nihin warar badan oo waxaan soo gaaraa raadarkeena laga dansaday soomaaliya raadar ma balahanba marka beledweyne raadigiisa amisom haysa soo wixii intaa ka dambeeyey madaxweyne xasan sheekh shariif iyo pilotkii qaaday laga wareysana wax su'aalo kale iima taagna u malaynaa ma jiro miyaa kor keeni waa meesha wasiirka amniga shaqadiisa uu ku falgaroobay waa in xilka lagala laabtaa horta inaad noo kala saartaa mas-uuliyiinta halkaan fadhiya su-aalaan u wada qabnaa ma tan maxaan ku rahdaa wasiirka duulista bisaa soconayso kadib kuwa kala bilaabaynaa waa mahadsanta wasiirka duulista iyo hawada waxaa weyaan aad iyo aad u mahadsan yahay waxaa weeyaan su-aalihii inta badan waa la weydiiyey mudane sida loo sheegay warbixintii ay soo saartay hante dhowrka waxaa lagu eedeeyey in musuq maasuq iyo maxaan ku rahdaa maamulno aad u baahsan ay halkaa ka jirto kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 2019kii bishii 8aad 17keedii xeer lambar 184 uu ku soo saaray hay-addu inay tahay hay-adda duulista hawada hay-adda duulista iyo saadaasha hawadu inay tahay hay-ad madax bannaan oo iskeed u taagan marka waxaa weeyaan waxaan ka warqabnaa marka in dowladda federaalka soomaaliya heshiis kula gashay hay'adda in ay u aruuriso lacagaha hawada laga qaado
lacagahaas ayada ahna lacaga ka mid ah ama lagu qiyaasay ay hay-addu ay u gudbiso qiyaas lacag 2 milyan ku dhow bil kaste in ay dowladda dallacato lacagta lacag ka mid ah oo 30 milyan ku dhow in markii lagu dallacday iyaata ay tiri waxay naga qaaday faafoori isa qabsi kadib meel babliga lagugu weydiiyey adiga lacagta halka ay jirto lacagta iyada ahayd xaggay ku dambaysaa su-aasha labaad aan ku weydiinayo waxaa waaye faafoori waxaan ku naqaanaa shirkad service qabato lacagta hawada laga qaadaa ee sharciyadda inay ku soo qaado ama ay wax ka ogaato wax ku maamushaahay sharciyadda ay ku ogaatay ama ay qayb kaga noqotay inaad noo sheegto waa kaa rabnaa su-aasha labaad ama saddexaad inaan ku weydiiya aan rabo waxaa weeyaan mudane wasiir waxaan la soconnaa eelaboorka magaalada muqdisho hareerihiisa waxaa weeyaan shirkadda faafoori iyo shirkada ay ka mid tahay carrakaaweyn ay ka qodaan gododka maanta loogu tegi karaa markii la qabtay ama saraakiil eelaboor ka mid ay qabteenna adigaa ka fujiyey waxaa lagugu eedaynaa waxay tahay hay-adda madaxa bannaan oo madaxweynaha dekreetadooda ku soo saaray iyo saraakiisha la shaqeeya oo marka ay qabsadeen shirkadaha noocaasa adigaa ka fujiyey maxaad ugu madax bannaynaan la adahay ilaa heer warqad laga soo saarana loo gaarsiiyey hay-adda sana iskeed u shaqayso su-aasha afaraad oo ku weydiin lahay wasiir waxaa weeyaan arrinka xanibaaddii dhacday waa dembi u baahan inuu meel fuulo naf iyo maal baa ku dhacay intay kismaayo xanibneedna dad dhaawacay xanuunsanaa oo eelboor loo soo qaadi lahayaa qaarkood dhinteen qaarkoodna maxaan ku raha xaaladooda wax lagama qaban kara la yidhi mas-uuliyaddaas ama isku tir ama qof kale ku tir kaama baxsanayso labada jeer ee safarkii aad xanibteenna kan kismaayona safarkan ka mid ahaa kan beledweynena anigaa joogay marka mas-uuliyaddaas waa inay meel fuushaa mudana guddoomiye ma rabno in mas-uuliyadda ayada ah yani la isku tuutuuray aqbal guddoomiye su-aalaha horaa lagu gudbiyey wasiirka su-aalaha uu ka soo jawaabaya sagaashankaas markay dhamaato wasaaraddu waa fasaxi doona marka hal daqiiqa kusoo kooba si jawaabta aadashaa aqbal waa guddoomiye ifure بسم الله وأقبل إن شاء الله ودذالنا قدومي رالي هذا خياري وزير ردينا نو يمد ما أنت أقبلين برلمان كسوهر فريستان وسؤالك جواب وأمهد علنا مركه هره وحن ربع أنا هلك كعد وزيرك جديدك صاحبك عمر ما دام هو يري ma jirin wax aan xirnay ama maaragtay waxaan rabaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa hadda ka hor shir jaraa'id qabtay oo sheegay 3 cisho kadib in garoonnadii dib loo furay arrintaas ma beeninaysaa wasiir waa kow taas waxay caddaynaysaa inuu hore u xirnaa garoonka haddana aad halkan ka diiday inuu garoonka marna aadna xirin labo waxaan fadhiyey beledweyne maalintii xayiraadda lagu sameynayay madaxweynayaashii hore ee dalka soo xukumayey marka naloo caddeeyey amisom iyo qolada aviationka ay yidhaahdeen ma jirto wax diyaaradoo duuli karto kana soo degi karto beledweyne garoonka oo dhiiqa ah darteed garoonka annagoo joogno madaxdii maaragtay hiiraan heer gobol iyo heer degmo kuwii hirshabeelle xildhibaanadii qaranka annagoo ku dhan garoonka diyaaradaha ayaa waxaa soo degatay oo diyaaradda madaxweynayaasha wadayna la celiyey ayaa waxaa soo degatay diyaarad etoobiya ka timid ee waday ama cabirkeedu ahaa 3 jeer diyaaradda nalaga celiyey 3 jeer sayskeeda ka weyn oo aan la yaabnay fashilkaas markuu dhacay kadib ayaa diyaaraddii lasoo fasaxay oo dib loo soo celiyey inta aan ognahay annaga miyaana ceeb idinku ahayn wasiir waxaan rabaa su-aasha saddexaad aan raba inaan kusoo gebagabeeyo diyaarado madaxweyne guddoomiye ogolo daqiiqad second habeenkii diyaarado badanaa ka dega garoonka muqdisho guuxoodana aan maqalno aana aragno qof kastoo muqdisho joogana wuu ogyahay maxaad warbixin ka haysaa waxa ay yihiin iyo waxay u yimaadaan salaamu calaykum waxaan ka hormarayaa xildhibaan yuusuf su-aalihiisii xildhibaan yuusuf wuxuu sheegay in dhinaca duulista rayidka ay ka jireen
musuq way fududahay in la iska yidhaahdo musuq ayaa meel kasta ka jira iyadoo aan wax caddayna haba yaraatee aanan loo haynin marka waxaa loo baahan yahay runtii in la fahmo hay-adaha marka ay imaanayaan su-aalaha la weydiinayo oo wax laga sheegayo in sida ay u shaqeeyaan marka hore aad loo hubsado wasaaradda gaadiidka duulista hawada sida waddamada kale adduunka oo dhan hay-adda duulista rayidka iyo wasaaradda gaadiidku way isla shaqeeyaan wasaaradduna oversight ayay leedahay sababta warqadda loo soo saaray musuq iyo wax ku saabsan ma ahayn hay-addii la yidhaahdo ayaata ayaan la gelaynay contract maadaama aan contract cusub la gelaynay hay-adda ayaata waxaa loo baahday in hay-addu ay tahay hay-ad jirta maadaama lacagta lagu soo wareejinayo two wasaaradda gaadiidka ma soo gasho lacag ay musuqi karto lacagta hawada laga aruuriyo overflightka lacagta laga qaado waxay toos u aadi jirtay hay-adda ICAO wasaaradda ma soo mari jirin mashaariicda aad aragteen ee hawada lagu soo wareejiyey qalabka aad aragteen meel kasta la dhigay ee casriga ah shaqaalaha aragtay shuruucda la sameeyey dakhligaas ayay ka timid ICAO-na gacanta ku haysay shirkadaha la shaqeeya ICAO wasiir cali jaamac jangeli uu mar hore ka dhawaajiyey ay ka mid tahay shirkad talyaani ah dowladda Soomaaliya haba yaraatee shirkadaas wax xiriir alla ma laha kontraad waxaa siisay ICAO ayaa la shaqeyso inagu lacag aamusuqna maba soo gashaba running costiga idinka heshiin oo annagana aan helno waxaan ka ahayn oo naga soo galaa meesha ma jiro shuruucda sidaas ayaan anagu ugu hogaansanahay marka musuq way fududahay in la yiraahdo meel heblo musuq ayaa ka jiro sana kastana waana la baaraa 2018 aniga ayaa warqad u diray meemodeedana waa idin leex wadaagi doona hay-adda ICAO aan kaga codsanayno 20 sano ee la soo dhaafay lacagtii ay dowladda Soomaaliya u aruurinaysay iyo waxa ay ku qabatay auditkaana waa la sameyn doonaa waxa soo dhan waa la soo xaqiijin doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo laakiin lacag inaga naga soo gashay meeshaas ma jiro wasiirka aan ka hadalnay yiri 3 maalmood way soo gabagabowday waxaan filayaa inuu ka hadlayay shirkaduhu waxaa la yidhi 24 saac ka hor ha soo codsadaan permit ma ogi xanibaad kale ma jirin diyaaraduhu lama joojin arrinta beledweyne waxaa ka jawaabay maareeyaha ayaa ka jawaabay marka waxaan u maleeyaa in su'aalihii aan halkaa kaga baxay mahadsantihiin okay diyaaradaha habeenkii wax badan oo oversight-kana waa la isweydiiyey annagana aan halkan kaga faa'iidaysano 2017 markaa imaanayna airportka 4 galabnimo la xiri jiray airportka habeenkii uu shaqeeya diyaaradaha aad arkaysiin waxay u badan yihiin diyaarado commercial ama medical evacuation laakiin wadanka diyaaradaha ka baxay waxa soo galay waan ka warhaynaa airportka sida ogtihiin waxa u shaqeynaysa hay-adda ICAO 82 qof Nairobi ayay joogeen Nairobi ayaa laga maamulayay shaqaalo hay-ad kale u shaqeeyahay maanta 82kii waa Soomaali dhowr qof oo ajnabi ah nagu jiray 3-4 qof dhammaan waa shaqaalaha dowladda Soomaaliya maanta aan wada hadlayno xamar ay joogaan lacagtooda xamar ay ku qaataan halkan ay degan yihiin markaan imanaynay hawada Soomaaliya waxa laga maamulayay Nairobi hatta qofkii loo soo bedelay inuu towerka yimaado oo halkan diyaaradaha soo degi raba kaliya uu hago uu diidi jiray maanta dhammaantood xamar bay degan yihiin marka wax badan oo sidaas oo kale airportka sida la socotiin waxa ka soo degi jirtay diyaaradda Turkish Airlines diyaaradaha Kenya ka yimaado oo dhan waxay soo bixi jireen subaxii 4 ayaa airportka la tagi jiray hadda Nairobi waqtiga rabtaa ka soo baxaysa xilliga rabtaa imaanaysa xamar diyaaradaha internationalka Turkish kaliya ahaan jirtay maanta 5 diyaaradood dhowr badanna way noo soo socdaan marka wax badan ayaa wasaaradda u qabsamay oo aan ku faraxsanahay oo oversight-kiina iyo su'aalihiina wixii kale oo madmadow ku jira oo u baahantihiin golaha hortoodana idin kaga jawaabi karaa individualna xafiiskaanu idin furan yahay oo ka jawaabi karna aad baa mahadsantahay waa mahadsan tahay
waxaan rabaa wasiirka waqtigeena iska dhumiya mar raba hore inaan u weydiiyey wuxuu yidhi weli laguma eedaynin wasaaradayda wax isdabamarin iyo lacag lagu eedeeyey ma jirto mudane wasiir riboodkii hanti dhowrka guud oo soo saaray sanadkii 2018 wasaaradda gaadiidka duulista hawada wuxuu uga hadlay bejka 60aad dib aan u fiiri kartaa lacaga idinku qoran ood ku eedaysantihiinaa jira oo ayadoo caddaymo aan loo haynin aad bixiseen oo midu 157 tahay madaxyadeedu ku caddan yihiin 221 2213 2214 2256 sidoo kale lacago aad qabateen oo adinku aad u samaysateen waraaqaha lagu qabanayay qarash ahaan aad u isticmaasheen oo ayadana idinku qoran ayaa jirta oo 86 kun waxaa jirta lacag kale oo idinku qoran oo shirkada adinku heshiis aad la gasheen aad siiseen oo 11500 madaxyada laga isticmaalana ay qoran yihiin kuwa kale waxaa jira shirkado duulimaad aad siiseen oo iyadana idinku qoran oo mid waliba lacagta aad bixideen madaxa ay ka baxday iyo tiradeedu inta ay tahay qoranta marka sidee u dafiraysaa ribood dhan oo hanti dhowrku inta idinku soo baaray oo keenay uu leeyahay lacagahan aad ku eedaysantihiin sideed u inkiri kartiin oo mahadsanta horta innaga wax eedeen aan looma soo jeedinin sida aad la socotiin waxaa jiray sida dowladdeena ay u timid habraac cusub ayaa la raacay habraacaasi oo sheegaya lacagaha qofka qaban kara iyo meesha ay mari karto iyo sida loo isticmaali karo habraacaasi inta uusan hirgelin wasaaraddii ugu horreysay ee September bilowdaan September 2017 ayaan ahayd iska wareejisay dhammaan meelaha lacagaha laga qabto wasaaraddu way ballaaran tahay qaybo ka mid ah ayaa waxay qabteen lacago ay ku qabteen rasiid dowladeed oo si sharci ah haddana ay meel ku marsiiyeen recommendations ama tala bixin ayaa naloo soo jeediyey uu noo soo qoray garyaqaanka hanti dhowrka guud uu leeyahay waxaan idinku talinayaa hadda iyo wixii ka dambeeya in lacagaha sidan aad u bixisaan waxa aad u isticmaalaysiin aad budgetka soo marisiin tiina waan sameynay waraaqo waxay ahayd dhinaca ay arrintaasi ka jirtay qaybta airportka ayay ahayd maareeyihii uu nala joogaa cabdi ashkir generaal cabdi ashkir anigana waraaqa ayaan u qoray isagana completely wuuba joojiyey lacagtaasi qabashadeeda lacagtaasina meelihii loo isticmaali jiray iyo dhammaan hanti dhowrku waa waxuu ku qancay ma ogyahay lacago la lunsaday ma ahayn waa mahadsanta wax yar ma iga horwareegi kartaa saxaabku wasiir raalli ahow riboodka hanti dhowrku waa qoran yahay 2017 wuxuu leeyahay buugaagta ay dakhliga ku qabteen ma ahayn buugaag sharciyeysan oo ka soo baxay xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda halka wasaaraddu ay soo daabacatay buugaagta lacag qabashada waxaa cad buugaagtina adinka soo daabacateen lacagta aad ku qabateen sida u isticmaasheen ay sharci darro ahayd waxa anigaan kugu haysta taas waa wasiir mudane gadoomiye iyo mudanayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma rabi inaan ku fogaado waxaan rabaa su-aalahayga toos inaan u galo sidaan ognahay mudane wasiir maamulka hawada soomaaliya waxaa inoo maamuli jiray intii burburku uu jiray hay-adda duulimaadyada qaramada midoobay ee loo yaqaano ECAO waxaan rabaa su-aashayda waxa weeyaan maamulka hawada soomaaliya ma dowladda federaalka ayaa toos u maamusha mise weli ECAO gacmaha ayay nagula jirtaa oo af ahaan ayaa nagula wareejiyey ta koowaad ta labaadna waxa weeyaan maamulka hawada soomaaliya wax sahlan ma aha dalkeenu hadda ayuu ka soo kabanayaa burbur iyo dhibaatooyin fara badan ka wasaarad ahaan waa maxay istiraatiijiyadaha iyo qorshayaha ee idinkuga aadan maamulka hawada dalka asalaamu calaykum barnaamijkan hawada wuxuu soo bilowday madaxweyne cali mahdi kaawiya barnaamijkaas iyo cabdulla siyaan alla sixaa ilaa iyo hadda aniga intaan arko waxaa waaye sidii hawshu waa u socotaa dhismooyinku waa samaysan yihiin barnaamijyadu waa isku filan yihiin hal su-aalaan rabaa wasiir inaan weydiiyo waxay tahay waxaa jira raadihayna ama tvgeena STN oon ka fiirsanno muxuu ahaaye qof wasaaradaha inta la waco waxay qabteen ay waxaan taas maxaa uga qaybgeli weysay dagaalka wanaagsanoo samaysay quruxdan badanoo meesha taal eeraboorka see u dhisan yahay
أنا متكلم كدرة إيربورك هرتايا فغوري لسي هذا ما جوجي هواي كديارها ماشي قلت لها الدار ده داير على قدستي دولتي كدستي أصحابتي الحلبانة ما جوجي marka inta noo soo bandhig waa baasata wasiir horta marka hore waxaan leeyahay hambalyo wasiir inaan noo imaatay hambalyo mar labaad inaan la soo wareegnay hawadeennii oo uusan ku jirin shaki markay guddigaas anaa ka tirsannahay waxyaabo yar yaraa jiro oo loo baahan yahay in la soxo mudane guddoomiye mudane wasiir annaga waxaa noo imaaday dhowr cabasho oo aan kuu soo dirnay warqadaheedii oo ka socday Union Airlineska ay ka mid tahay mid baarkinka diyaaradda baarkinka baabuurta iyo heshiiskii aan la gasheen diyaaradaha wadamada dariska aan nahay taas waxaan rabnaa inaad si fiican noogu faahfaahisid iyadoo qoraal aan ku soo weydiino guddi ahaan mana aadan nooga jawaabin taas waxaan rabnaa ama qoraal noogu soo gudbo oo inta ka ballan qaad ama si waafiya inaad noogu jawaabto midda kale aan rabo mudane guddoomiye waxa waaye mudane wasiir June 2018 waxaan tagnay oo aan soo siyaaranay aniga adiga elboorka beledweyn waxaan soo aragnay aafadii uu geystay May bixi 2018 maalintii waxaad ka ballan qaaday inaad wax ka qaban doonto waxna ka sameey doonto ilaa hadda wax kama aadan qabanin maxaa kaaga qorshaysan oo aad ka sameynaysaa maadaama aan aragnay 6 milyan oo meel ah 12 milyan oo meel ah oo ay ku qoran tahay in lagu dayactiro elboorada dalka kaas waxaan rabnaa inaad si waafi maanta nooga qanciso hadaayay xildhibaan been ku weydiiyay kamana aadan jawaabin elboorka beledweyne waa elboorada ugu muhiimsan dalka udub dhaxaadna u ah ummadana ay aad ugu baahan tahay second population Soomaaliyeed ay ku nool yihiin lacagaha laga qaadayta oo laga qaado diyaaradaha localka ahne markaa fiirsid maalintii ilaa 20 diyaaradood aad magaaladaasi lacagta ugu badan iyada ka soo xarota maxaa kaaga qorshaysan wasaaradda maaliyadda waa weydiinay adigana hadda ku weydiinayna mudan wasiir waa mahadsan tahay su-aashii ahayd maamulka hawada June bishii hadda naga dhamaatay August kowdeedii waxaa nagu soo wareegay shaqaalihii waxaa dhammaaday heshiiskii aan kula jirnay hay'adda ICAO inay noo maamusho hawadeena hawadu waxaa maamula dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya lacagta ka timaada hawada Soomaaliya oo dhan waxay u soo dhacdaa dowladda Soomaaliya marka dowladda federaalka ayaa mas'uuliyad oo dhan qaada iyaga ayaa maamula qolo kale oo aan heshiis kula jirnay inay wax noo maamulaan ma jiro waxaa jira mashaariic inoo socoto oo dib loogu dhisay civil aviationka oo hay'adda ICAO ay mashruucyadaasi nala wado waxayna noola wadaa as a consultant camal moogi wax kale ma jiro strategiga aan ka leenahay hawada Soomaaliya waxay tahay qalab badan training badan iyo energy badan ayaa waxaan gelinay inaan la soo wareegno hawada marka grade-ka hawadeena uu yahay ayaan rabnaa hadda kor inaan u qaadno haddii Ilaahay ka raali noqdo mashaariicda la wada marka ay dhameystirmaan hawadeena waxay tagi doonaa meesha ugu sarreys dakhliga aan hadda ka helnana uu laba laabin doonaa haddii Ilaahay ka raali noqono xildhibaan Zahra aad bay u mahadsan tahay waa run airportka dhinacyadiisa oo dhan mashaakilaad ayaa ka taagan uu nagu yaraanaya waana dhibaato soo jireenaheedoo hore u soo socotay xildhibaan Farxiyo waan mahadsan tahay xildhibaan Farxiyo runtii waa xoog ogaal si hoosana noola shaqeysa annaga dhinaca gaadiidka iyo civil aviationka dhinaca parking cabashada ka timid waxaan u baahannahay runtii inaan xaqiijino haddaa abaar ka hor waxaan idiin sheegay in wasiirkii hore wasiir Cilmooge uu ku wareejiyey parkingkana si cad ayuu ugu cad yahay inay maamusho shirkadda Favori lacagtana iyada ay qabato Favori waxay contract la gashay company la yiraahdo Goobweyn 2015 ayaan filaya inay la gashay ilaa 2019 ma suura gelin in parkingkaasi la isticmaalo maadaama shirkadaas iyo Favori ay dacwo dhaxtiilay shirkad kale ayay Favori ku wareejisay parkingka lacagta ka timaadana Favori maadaama ay xaq u lahayd inay kirayso sida warqadda ku cad way kiraysay waxay ka kiraysay shirkad dakhligana waa lagu heshiiyay dakhligana dawladda Soomaaliya ayuu u soo dhacaa qof kale uma soo dhaco diyaaradaha cabashooyinka ka yimaado waa cabashooyin sax ah lacagna way dhiibaan sidaan hore u sheegay lacag 14 milyan dollar ah ayaa waxa la gelinayaa airportka isagoo parkingka lagu weyneenayo parkingka isaga oo lagu weyneenayo
iyo dhammaan aaladihii loo baahnaa in habeen iyo maalin uu shaqeeyo airportka baarkino badanna uu lahaado laguna weyneynayo amnigana lagu kordhinayo iyo efficiencyga intaba wuu socdaa hadduu ilaahay ka raali noqdo beledweyne waa run aniga iyo xildhibaan farxiyo waan tagnay inta aanan taa u gelin aan dib u noqdo lacagta hawadeena laga aruuriyey waa lacagta noo saamaxday in qalabkii ugu casrisanaa adduunka ka jira ee civil aviationka maanta ay xamar ku rakiban yihiin meelo badan oo kalena lagu rakibi doono insha allahu tacaala maadaama aan la soo wareegnay dakhligii waxaan rabnaa dakhliga nooga imaanaya hawada inaan ku dhisno civil aviationka iyo airborrada beledweyne waa priority hadduu ilaahay ka raali noqdo waana runtii way istaahishaa lacagta hataa hawada ka soo gelaysa keliya in lala suga ma aha sano kasta uu ka dhacaa oo ka xumay in hadda hal sano laga joogo iyo waxoogaa xilligii aan tagnay oo hadda laga yaabi lahaa in dhibaatada beledweyne soo gaartay wax badan ka tar lahayd haddii airportkaasi howshiisa la geli lahaa laakiin insha allah tacaala wuxuu ka mid yahay priority airportska ayuu ka mid yahay xildhibaan aniga iyo guddiga ood adiga ku jirto dhammaan إن شاء الله تعالى واسكا كاشن دونا سيدي سيد دق دقة إيربور كاسي وحلوغا قبل لها هذا ما تنتين قدومي هذا ما سنتهاي وزيرك يقوم صعد سواشي وحيقوم صعدها ماريها جودة أكوا يعني ماريها جودة سلاشة هودا وحن ويدينا يا ماهر وحصوص صارتين وحن فصحنا وحنا لوكال فلايت كي دوبلة تكسماياها ديان دورشة اللي قصوا دورته كسباي دوبلة لوكاس يحفظوا waxay xaqiijiyeen wax diyaarad ah oo bilowday inay sijilin diyaaradihiina ay dhahaan wax qoraal ah oo rasmi ah oo leeyahay waan fasaxnay inay sijilin afka ay tahay oo diyaaradihii ay ka cabsanayaan inay ganaxdaan arintaasi cadeynteeda ilaa hadda toobariga ka soo wareegtay waxa uu dhici lahayd diyaaradii u socon lahaayeen ilaa cadeeyo su'aasha kale igu xigto waxay tahay diyaaradii Nairobi Kismaayo toos u tagi jirtay wali way taagan tahay Nairobi كسماء أنا حمر كسماء أي تكتا شعب أنا راعى قان كهر قان سياسات بوها سياسيين تيمان كتب لنا نيرو ويسكجوان شعب كذا نيرو تكسر دولار حمر إما لنا كسماء سي أنا شن بقول دور لا قارا أرنت حسنا قان كذا وحربنا إن دبي ويسكو سمعسان أرنت دوب لنا على عدسان إلا هاد واحد يارد يعني كده جين وديان دير الشيء ده وما سنتي ديارد وزيرك أو يارتين دقيستا بليز حل بان أنا كجوابي ديارة دوبلي وفصحنتهاي وعلى فصحي ديارة هردن وحلو ديري إيميلز نوتن بالو سو ساري دمان ولا ودا أوجيهاي هي أدى دولست الرئيس الصومالية ديارة ما قبت أي أدرت دوبلي لكن ديارة دي ربط إني دوبلي كدوش أو كسماية أدى وفصحنتهاي مرهرة أيالا فصحي guddiga diyaaradaha waa la weydiin karaa emailka daarta ana kuu soo diri karaa loo diray notam koon ku siin karnaa xildhibaan guddiga kugu soo daraan emailka mailing listiga waa helaysaa xildhibaan taasna waa kaftan diyaaradda Kismaayo iyo Nairobi diyaaradda haddii laga hadlo waa normal waa wax normal ah meel kastana way ka jirtaa marka aad wadan kale aadayso in laga baxo magaalada caasimadda ah marka xamar in laga baxo wax dhibaato ah oo ka jira in xagaasi oo la soo mara ma laha maadaama aan ka jawaabo su'aalayga rays aan ka jawaabo aye waa mahadsantiin aye جواب وحيرة أسلقى السنة رأى هذا كي هاي ديارتها كبر حيا كسمايا أما كإيمانا يا نيروبي إنا حمر صومران وحاكي يعني doorashadii markii ay dhacday kadib ay dhici weyday kadib aan dhamaysta xildhibaan marnaba raali kama nihin dad micnaha Kismaayo hortana lagama xigo waana dadkeena dadka joogo dhibaatana uma rabno mana rabno inaan xanibaad saarno
marka insha allah tacaala arrintaasna revisit baa lagu sameynayaa culaysna ma rabno inaan saarno kismaayo culays gooni ana xildhibaan ma rabno inaan saarno waxaan filayaa dad yar baa baarlamaanka inta aniga kismaayo iga taalo ay ka taalaa sida ugu danqanaysiin si ka badanna waan ugu danqanayaa marka caadifadda ha laga bixiyo caadi iska dhiga insha allah tacaala kismaayona wax dhiba kama jiraan